kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Somali Press TV qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hubkii ugu badnaa ka keensaday dalalka Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Uganda madaba in guriga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga furay keed hubka la dhigto barnaamij wareedkeena ayaan ku eegi doonaa qodobada kale ee barnaamij wareedkeena aan ku faahfaahin doono waxa qayb ka noqon doono Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur wasiirka diinta iyo uqaafta ee dawladda oo markii uu horeysay hogaamin doono dagaalka dhan ah Al-Shabaab oo ka bilaabanay deegaanada Koonfur Galbeed barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa qodobada kale ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono shirka dawladda iyo madaxda dawlad goboleedyada oo lagu go'aamin doono muddo kororsi cusub barnaamij wareedkeena ayaan ku eegi doonaa qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh oo qayb ay ka yihiin howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka ayaan barnaamij wareedkeena aan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal balse haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqatay janalkeena waxaan kaa codsanayaa inaad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada xiisaha leh ee halkan aan soo gelinno mahadsanidin dhammaantiin aan barnaamij wareedkeena ku bilaabo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in hubkii ugu badnaa uu ka soo dejiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho hubkaasi ayaa madaxweynaha wuxuu ka keenay dalalka Uganda iyo sidoo kale Masar madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan markii uu gaaray dalka Uganda wuxuu madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Kaguta Museveni uu ka codsaday in dawladdiisa ay dawladda Soomaaliya ay ku taageerto hub waxaana Yoweri Museveni la sheegay in hubkii ugu badnaa uu Soomaaliya u soo diray si aanan loo ogaan xogtaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diyaaradii uu ku yimid Muqdisho hubka ku soo qaaday waxaana hubkaasi la dhigay guri uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu degan yahay oo ku yaala agaarka eelaboorka aadan cadde oo uu degnaa jiray tan iyo ololihii doorashada markii ay socdeen sidoo kale dawladda Masar ayaa la xaqiijiyay in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho ay ka soo dejisay laba diyaaradood oo waday hub aad u fara badan waxaana xogaha ay tilmaamayaan in hubkaasi la dhigay guri kale oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku leeyahay degmada Cabdicaziis gaar ahaan agaarka Mirnaayo xogta la helay ayaa intaasi ku sii daraysa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hubka uu ka dalbaday dawladaha Masar iyo sidoo kale Uganda danaha uu ka leeyahay ayaa waxa lagu sheegay kadib markii uu madaxweynaha uu qorsheeyay in uu tababarto 1800 oo askari oo ka tirsan beeshiisa waxaana tababarkii uu horeeyay 200 oo askari oo ka tirsan beesha madaxweynaha ee ku qaadatay xirada Beledoogle iyadoona tababarkooda kadib laga dhigay ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha gaar ahaan kuwa ilaaliya xarunta Villa Soomaaliya waxayna qayb ka noqdeen ciidamada koofi casta la yiraahdo ee ilaalada ka haya xarunta madaxtooyada Soomaaliya maalmaha soo aadan ayaa sidoo kale waxaa madaxweynaha loo tababari doonaa 1000 iyo sidoo kale 500 oo askari oo ka tirsan ciidamada beesha madaxweynaha uu ka dhashay waxaana hadda soo shaac baxday in dalalka Soomaaliya ka taageera dhinaca amniga ay la yaabeen arinta uu ku dhaqaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah in iyadoo laga warheenin uu hub ka soo dejiyay magaalada caasimadda ee Muqdisho qodob wareedka kale ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahino dhaqdhaqaaq ciidan ayaa ka bilowday degmada Ceelberde ee gobolka Bakool iyadoona dhaqdhaqaaqa ciidan uu hogaaminayo wasiirka diinta iyo uqaafta Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo markii uu horeeyay u dhaqaaqay dagaalka dhan ah Al-Shabaab maanta degmada Ceelberde ee gobolka Bakool waxaa ka degtay diyaarado siday ciidamadii ugu badnaa iyo sidoo kale wasiirka diinta iyo uqaafta ee dawladda waxaana ciidamadani ay isugu jiraan ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka diinta iyo uqaafta dawladda Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo markii uu ka degay Ceelberde la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in markii uu horeysay uu hogaamin doono dagaalka ka dhanka Al-Shabaab furumaha Ceelberdena ay noqon doonaan furumihii lagu soo afjari lahaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa markii uu noqday wasiirka diinta iyo uqaafta dawladda
wuxuu noqonayaa howlgalkii u horreeyey ee ka dhan ah al-shabaab uu hogaamiyo. horey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa u diiday in deegaanada maamulkiisa uu ka dego wasiirka diinta iyo awqaafta, balse maanta ayuu ka degay degmada Ceelberde ee gobolka Bakool asigoo la socday diyaarado siday ciidamadii ugu badnaa oo ay dawladdu u dirtay dhinaca iyo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. wuxuu noqonayaa howlgalkii u horreeyey oo uu hogaamiyo wasiirka diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mukhtaar Roobo Cali Abuumansuur oo sheegay in furumaha hore ee dagaalka ka dhanka al-shabaab uu ku dhimanayo amba deegaanadiisa Bakool iyo sidoo kale Xudur uu xureysan doono. qodobka ugu dambeeya ee barnaamij wareedkeenna haddii aan eegno, shirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada uga socda Muqdisho ayaa xoguhu waxay tilmaamayaan in muddo kororsi cusub looga dhawaaqi doono. shirka golaha wadatashiga qaran ee shalay ka furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa la soo warinayaa in lagu go'aamin doono muddo kororsi dadban oo loo sameeyo dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka. ila wareedyo ka agdhow xubnaha ku shirsan Muqdisho ayaa xogtu waxay sheegaysaa in shirka madasha wadatashiga qaran laga soo saari doono go'aan ah in dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka mudxilhoontooda uu hal mar u dhammaado, maadaama aana doorasho laisku mashquulin karin xilligan oo dagaal ka dhan ah al-shabaab uu ka socdo gobollada dalka. qodobkan ayaa sida la fahansan yahay wuxuu ka mid noqon doonaa war murtiyeed la filayo in gabagabada shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu ka soo baxo. arrintan ayaa ka dhigan in dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka uu mudxiraadkooda mar qura uu dhammaan doono sanadka 2025 oo xilligaasi waqtiga mudxilheynta madaxweynaha Hirshabeelle ay ku egtahay. sidoo kale Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cabdicasiis Laftagareen ayaa iyaguna baarlamaanka waxay u gudbin doonaan in muddo kororsi hal sana loogu daro maadaama 2024 ay ku egtahay muddadooda. si kastaba waxaana caddeen sida arrintaani loo marsiin doono reer Puntland maadaama maamul goboleedyada kale ay ka duwan yihiin. dowlad goboleedka Puntland ayaana maamul goboleedyada kale waxay uga duwan tahay in awoodda maamulka uuna gacanta ugu jirin. si rasmi ah looma ogo in markii hore qodobkaani uu qayb ka ahaa ajendaha shirka ay madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay Muqdisho ay ku yeesheen. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana muddo dheer madaxweyne Farmaajo ku dhaleeceyn jiray inuu ku tuntay dastuurka uu muddo kororsi u sameeyey madaxda dowlad goboleedyada uu danaha uu ka leeyahay. balse siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda u muuqata midii uu ka diidi jiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. guud ahaan saaxiibayaal waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeenna aad kala socoteen Somali Press TV. taan barnaamijkan kiisi xiga aan ku kulmi doono dhammaantiin nabadgelyo.